waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan magaalada hargeysa ka soo diyaariyey waryahayga cabdixakiin maxamuud sharwac. waxaana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo idinka iman doona magaalada hargeysa. maalintii shalay waxaa magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey bandhigga caalamiga ah ee bugaagta amaba hargeysa international book fair, kaasoo ay ka soo qayb galeen dadweyne isugu jira qoraayo, suugaanyahano, abwaano, hal abuuro iyo weliba ashkhaas caan ah oo ka kala yimi 12 waddan. waxaana bandhiggan oo socday muddo 6 cisho ah lagu soo bandhigay buugaag kala duwan ay curiyeen dad hore qoraalka oo bugaagta ugu caan baxay iyo weliba kuwa ku cusubba. waxaana badi bugaagta la soo bandhigay qoray dhallinyaro da'doodu ay yar tahay, kuwaas oo bugaagtooda goobta lagu falanqeeyey, iyadoo khubradii goobta isugu yimi ay ku tilmaameen inay muujinayso in sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayso dhallinyarada wax qoraysa, gaar ahaana kuwooda wax ku qoraya afka Soomaaliga. haddaba maxaa dhiirigeliyay inay kordhaan tirada bugaagta la qoraya? ma yihiin qaar kororkoogaasi ay barbar socoto tayadii looga baahnaa? see bulshadu ma tahay mid akhriskooga u heelan? waa mawduuc aynu ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan, waxaana falanqayn doona islamarkaana igala qaybgelaya doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa ahna asaasaha bandhigga bugaagta, cabdalle xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah ururiye dhaqan, macalin siciid saalax axmed oo ku xil dheer afka Soomaaliga, iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhalinyaro ah oo islamarkaana aliftay bugaag kala duwan. haddaan ugu horreynba hadalka siiyo doctor jaamac muuse jaamac. jaamac, maxaa dhiirigeliyey inuu sare u kaco islamarkaana u kordho qoraalku? bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin. haddaynu dib u yara noqono 2008 markaan bilownay markii koowaad bandhigga caalamiga ee bugaagta Hargeysa la qabtay, intii aan dalka imanin waxa aan isku day inaan ogaano tirada bugaagta ee af Soomaaliga ku qoran ee wareegaysa ee dibadda laga heli karaayo. waxay ahaayeen 200 oo buug. marka la isku dayo bugaagta hore loo isticmaalay, kuwa laga helayo, kuwa cusub soo baxay, kuwan maxaan ku leeyahay library-da yaala oo dunidan ka hadlaya, 200 oo buug bay ahaayeen ciwaanada la hayay. waxay ku tusaysaa siday u yaraayeen bugaagta af Soomaaliga ku qoran ee wareegaya oo qaarkood waliba markaa soo baxeen. maanta markaad qiyaasto Hargeysa oo kaliya dhalinyaradii timi ama dadkii yimid inay bugaagtooda soo bandhigaan, ay labada buug fair u dhaxeeyay, labada bandhig u dhaxeeyay, waxay ahaayeen 123 buug. macnaha waxa soo baxay 123 buug baa soo baxay oo Somaliland oo kaliya ka soo baxo dhalinyaradu ay qoreen si loogu soo bandhigo. waxay ku tusaysaa in horta uu jiro maxaan ku dhahday koror xadaaf oo ah bugaagta Soomaaliga ku soo baxay. talabaad, aniga waxay ila tahay bugaag la qoro fara badan may soo kordhin. waxa soo kordhay wax weeyaan bugaagta Soomaaliga lagu qoraayo. taasina wax weeyaan guul aad iyo aad u weyn, waayo waxay muuqatay in Soomaaligi uu dib u soo noqday oo uu meel aad moodo inuu mar isku taagay oo 70-yada dhamaadkeedii meel isku taagay inuu dib ugu soo laabto kacaan af Soomaaliga wax lagu qoray inuu jiro. way geli doonaa ahmiyadda Soomaaliga isugu qayb qaadanaya ama uu dhiirigelinayo. haddaan u dhiibay macalin siciid, maxaa dhiirigeliyey inay sidan imika aynu tilmaamayno u kobcay amaba u kordhayaan tirada qoraalka bugaagta weliba ku af Soomaaliga lagu qoraya? laabad haddii aynu munaasabada tan aynu hadda ag joogno aynu ku cabirayno waa sida jaamacu sheegay, waxyaabo badan baa buug fairka bandhiggan uu ku soo kordhiyey, taas gaar ahaan xagga dhalinyarada iyo dhiirigelinteeda oo ka noqon karta waxyaabaha saameeyey. waxaan xusuustaa ilaa waagaan ku soo darsamay iyo inta iga horreysayba, haddii markii hore abuurka naadiyada abuurmay ee kala duwan ee tegey gobollada waaweyn ka abuurmay, ku-xigta markii librariga wareega loola tegi jiray oo ay loo qaybin jiray buugaga. marka la eego tartamada ay geli jireen oo wax af Soomaaligii wax ku dhiirigeliya oo la taaban karo uu yimi oo wax lagu falo ayaa iyaduna mid kale ah. waxa run ah oo ku sii kororsamaya tababaro uu bixiyo ama xarunta dhaqanka hadda ama markaa hore oo xitaa intaanay xaruntu abuurmin ka hor bandhigga buugaga dhalinyarada loo workshops qoraal curinta ay loo furi jiray. kuwaasi waa kuwa bandhigga buugaga iyo dhalinyarada siday ugu soo kordhayeen waxyaabaha dhiiriyey. ku qoridda buugaga af Soomaaliga
intaasi iyaday ugu weyn tahay. dabcan waynu geli doonaa af soomaaliga lagu qoray iyo weliba siduu bulshada ugu faa'iideynayo haddaan cabdalla aan usii gudbo dabcan de muna axmed cumar waan usoo noqon doonaa iyadoona dhallinyarada muddooyinka dambe bugaagta qoray ka mid a. aad iyo aad baad umahadsan tahay. horta wax walba baahi baa keenta in wax la qoro oo af soomaali maanta lagu qoro oo ay bataan baahi baa keenta. waxaan ahayn bulsho wax uun tirisa amba taariikhdeeda afka ka sheegta oo xafida taariikh hadday tahay suugaan hadday tahay hadday dhaqan tahayba. xilligii de waa laga soo gudbay magaalaa la yimiday waxbaa la bartay iskuullaa laga soo baxay af soomaaligii baa dee la qoray deedna waxay noqotay qasab in wax la qoro oo maaragtay wixii maaragtay qoraalkii waxaa muhiim ka dhigay cabdi muxuu ahaa waxaa muhiim ka dhigay qoraalka waxa weeyaan waa baahi keentay. waxaa baahidii kolkaa maxay noqonaysaa kol haddii la magaaloobay soomaaligiina uu qoran yahay uu meel fiican marayo in dee maaragtay wixii markaa laga fikirayay amba lalaha ulumaya amba qofku uu fikirkiisa ku jeedin lahaa ama taariikhku ku diiwaangelin lahaa in dee la qoro af soomaaliga lagu qoro. maxaa se dhiirigeliyey haddana oo sii keenay waxaa dhiirigeliyey waxyaabo maaragtay ay kow ka tahay Hargeysa International Book Fair oo ah maxay ahayd meeshii dhallinyarada iyo dadka maanta wax qoraya oo arkaysoo dhani ay ku soo hirteen adduunyada oo dhanna looga yimid oo maanta oo kii sagaalaad uu yahay 12 dal ay ka yimaadeen dad wax qora oo waaweyn sanad kastana way ka yimaadeen. dadka markay arkeen dhallinyaradii maaragtay Soomaaliland amba Hargeysa bay joogtay markaan iraahdo dhiirigelin xoog leh ayay waxaas siiyeen waana wixii loogu talagalay. dabadeedna waxay heleen tababar inay ku qaataan guriga dhaqanka ee uu aasaasay jaamacadda madaxda ka yahay. tababarkiina wuxuu keenay in qoraalkii tayo yeesho oo horo maro taaba buugagtii badisay oo keentay. tayaduna ma baano way leedahay waxaan arkay buugag badan oo taariikhdii ka warramaya oo dhalinyaro qortay xitaa laakiin tayadooduna aad iyo aad u fiican tahay. way si gaar ah u sii gali doonaa tayada laakiin intaanan tayada sii gelin muna weydiin doonaa muna dhalinyarada muddooyinka dambe qoray ee bugaagta soo kordhiyay baad ka mid ahayd haddaad aad u gaar koobto ama baad soo saarto maxay dhiirigeliyay idin muuqday inaad aad ku dhiirataan inaad bugaag doona qortaan aad soo kordhisaan. bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mahadsanid runtii sida ay ka dhawaajiyeen jaamac iyo adeero cabdalla xaaji iyo Saciid imika aad buu soo batay qoraalkii oo waliba kacdoon waxaan oran karnaa kacdoon qoraal iyo akhris ayaa yimid. taana waxa sababay oo koobaad sababteeda waxa weeyaan waa bandhiga caalamiga ee bugaagta Hargeysa. runtii aniga haddaan ka hadlo gaar ahaantayda markii hore aan aad ayaan u jeclaa akhriska ilaa yaraantaydii kadib markaan arkay bandhiga caalamiga oo markii ugu horreysay aan ka soo qayb galay runtii way iiga duwaneed sida dadka kale way iiga duwaneed waayo waxay ahayd meel aan ka helay wixii aan doonayay wixii aan jeclaa oo ah buugaag. kadib buugaagtii faraha badnaa ee lagu soo bandhigay way dhiirigeliyeen oo waayo waxaan ka helay wixii aan jeclaa baan helay waan akhristay. waxa kale way dhiirigeliyay waxa weeyaan tababaradii kala duwanaa ee ay macallimiintuna siin jireen in ka faa'iideystay. waxa kale oo dhiirigeliyay martida kala duwan ee qorayaasha ah ee hal abuurada ah ee ka soo qayb galay oo runtii khibradooda iyo waxay qoreen nala wadaagay. marka runtii waxaan oran karaa isku soo wada duub oo bandhiga waxa uu ka dambeeyaa in tiro badan oo dhalinyaro oo wax qoraysa la arko bandhiga ayaa ka dambeeya waayo waa meel guud ahaan qofka iyo gaar ahaanba dhiirigelinaysa oo xataa qofku hadduu wax gaar ah u jecel yahay uu ka helayo wixii gaarka uu jecel yahay oo dhiirigelinaysa. jaamac maaha inaad kordhaan tiradoodii unooda la yidhahdo bugaag badan baa la qoray dabcan way sii kordhayaan oo kacdoon baa aynu ku tilmaano tayo ma leeyihiin oo ma yihiin qaar aynu ku tilmaami karno tayadoodina leeyihiin wanaagsan. rooma maalin kaliya laguma dhisin xaqiiqdu waxay tahay sida cabdalla taqudis ka dhawaajiyay tirada guud ee bugaagta soo baxday aad bay u tiro badan tahay tayadu way liidataa guud ahaan marka la eego laakiin waxaa jira od arkaysaa od ifafaalood arkaysaa bugaag gaara ama qorayaal gaara oo tayadoodu iyagoo halkan wax ku bartay ku koray level aad iyo aad u sareeya runtii jooga. dabcan af Soomaaliga waxyaabo fara badan baa culays saaraya oo buug qoraalka af Soomaaliga ahi waxa weeyaan marka hore baan qoraalkii iskuulada lagu dhigin marka hore aan curriculumka ku jirin marka hore aan af Soomaaligu meel badan aan stable ka ahayn marka culays fara badan uu jiraayo af Soomaaliga qoristu ay keenaysaa laakiin tayadu waxay u baahan tahay inay korto si tayadu u kortana waxa loo baahan yahay saddex wax muhiim oo imika inaga maqan inagu waynu imkoon dhaqaaqno waxaanu dadkii wax qora wax akhriya alxamdulillah rabbil caalamiin taa waynu ku guuleysanay dadkii waa diyaar wax bay qorayaan laakiin imka qoraaga halkan Hargeysa Somaliland book soo saaraya isaga marka hore fikira iyada marka hore qorta
cid u edit garaysa ma jirto, iyadaa soo editara, iyadaa madbacadda tagto soo daabacda, iyadaa buuggii qaybi soo distributora, iyadaa soo bandhigta, iyadaa dadkii isugu yeedho xafladda u qabato hodheelka si ay dadka uga soo qayb galaan, iyadaa u qaybisa buugaagtii, marka dambe waxaa la gaadhaa ii akhri buuggii xitaa. macnaha adduunyada kale intaasoo aan soo sheegay kambaniyo gaar baa kula shaqaystaa. innaga markaa waxay naga maqan imka si tayadu iskama timaadee, wax kasta waa loo shaqeeya si ay u timaadee. si tayadu u timaadee waxaynu u baahanay inay soo baxaan publishers ama buug soo saarayaal awood u leh inay buuggan odhan karaan maya kani wuu fool xun yahay, ku noqo qoraayow soo sax. waayo waa gabagabada iyo weliba soo jeedinta dambe aynu ku tayin karna in ku hagaajin doono. laakiinse macalin Siciid baanu dhiibayaa dabcan isagu Soomaaliga ku xeel dheer bugaag badan waad aragtay iyo weliba dee qoraallo badan oo la soo bandhigay, waxaa la leeyahay tayadooda way liidataa, aduma qabtaa inay liidato? haddaad eegto de qof waliba oo waxa qoran akhriya buugga iyo buugaga dambaaba loogu qaatayo, waa sida wax waliba marbay bilowdaan waa soo koraan waa sii kobcaan. hase yeeshee waa la wada og yahay waxa ereyga qoran ee af Soomaaliga ku qoran ee baaha ama website ku qoran ama journaal ku qoran ama buugaga in badan oo ka mida ku qoran ama jaraa'idka maalin joogtada ah ku qoran, in wax qofkii wax ka og habka qoraalka iyo af Soomaaliga qoraalkiisaba inuu aad u dhaliilo, ama dee haddaadba istiraahdo akhriso sida aada ugu xiiqdo marka aada weedha bilowga ka soo bilowdo oo meelaad ku neefsato aada weydo. hakad baa lagu neefsadaa, joogsi baa lagu neefsadaa, astaan kale oo kuwaa ka mid a lagu neefsadaa, cod baa kor u kaca oo calaamad la yaab laa ku taala, mid kale aan oranahayn. sideennu u hadallo looma qoro, uguma qoro wax. weedhii kow ka soo bilaabatay baa baaragraafkoo dhan noqonaysa. marka waa qof u hadlay in uu sheegay waxaa halkaa lagu sheegay oo laga soo wariyey oo la yiri oo lagu waran oo aadan mar qura in yaroo neefi kaa iman. laakiin Siciid dabcan dee odayaashii iyo weliba khubaradii dhinaca Soomaaliga tihiin waxaad tihiin dadkii dee dhalinyarada uga soo horreeyay dhinaca luqadda iyo weliba qoraalka iyo weliba ururinta iyo hal abuurnimada, maana ahayn doorkiini inay helaan in la toosiyo wixii laaxina laga toosiyo, isla markaana kororkan ay kordhayaan tira ahaan tayadiina inaad la barbar socotaan? waxay ku xidhan tahay sababo badan oo tan waxa kanu ka ballaaran wax qof iyo labo iyo shan iyo xarun iyo meel quri qabato. waa wax haddaan dhinac waxa koowaad wuxuu ahaan lahaa luqo ama af waxa lagu bartaa bilowga iyo heer dugsi iskuul baa lagu bartaa. qaabka waxbarasho oo waddan u yaala, yacni dadka Soomaaliyeed hadduu aanu qofku fahamsanaynba oo uu u qabo, aniga xanuunkeeda meelo badan oo dhulka aad sheegtay aan tabliiqa la maro, ama waayo ka duwan tan dhulka Soomaaliyeed iyo Hargeysa iyo Somaliland iyo meel kale dad af Soomaali ku hadlaya ama Djibouti ama dhulka aanu kaga qayb galo shirarka, waayo ka duwan baan ku dhex jiray oo aan xanuunkooda ogahay oo meelo kale ah. marka waxa weeye qofkii caadiga ahaayoo Soomaaliga ahi inuu af Soomaaligu barasho uga baahan yahay ma oga. haddii uu ku hadlayo guriga ka soo toosana kuwii aan ogeyn baa qaar qalin qaata inay rabaan inay qoraan. hadda inuu barasho uga baahan yahayba ma kala hubsan afka adeega iyo afka aqoontu inuu laba wax oo kala duwan yihiin. isaga oo aan dareenkaa lahayn hadduu inoo qoro dee taya darro ka waayi mayno. waxa looga baahnaa oo koo toosin lahaa tayadaana waa barashada salkeeda oo habkii waxbarasho lagu soo baahiyo. marinada kale oo uu lagu baranayo afka loo baahiyo qofku marka uu asaaskii luqada yaqaan
ayaa qoraal curinta wax looga kordhin karaa. waad mahadsantahay siciid waa kuusoo noqon doonaa munaan u dhiibayaa muna idinka ma idiin muuqataa tiradan aad soo kordhinaysaan iyo weliba korarhkan badan aad ku samaynaysaa dhinaca qoraalka iyo weliba dhiirigelintan hadda aad haysaan inay tayadarradii in ay barbar socoto aad iyo aad baad mahadsan tahay waa run sidaa laga dhawaajiyey amaan hore ugu sheegnay aad buu qoraalku usoo badanaya tayadiina way barbar socotaa inay tayadarraduna ku jirto inkastoon la odhan karin dhammaantood way tayo xun yihiin runtii way dadaaleen xarunta dhaqanka way dadaashay bandhiguna uu dadaalay tababaraa jira la bixiyo runtii inta ka faa'iidaysataa ilaa ma aha inay soo saaraan wax tayo liidata laakiin waxaa jira dad kale oo fara badan oo aanay gaadhin amaba soo gaadhi kari waayey inay ka faa'iidaystaan dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa inay barbar socto laakiin ta koobaad muhiimadda koobaad waxa weeyaan inuu qofku dareemo horta waxaan aad qoraysaa ma wax tayo la ma aha markaas buu kala ogaan karaa inuu tayo leeyahay kale laakiin haddii uu 100% marka hore buu ku kalsoon yahay taas baa keenaysa oo mushkilad ah oo dhalinyartana haysata in markuu laba line qorabo uu markaaba isku qaato in wixiisu ay yihiin wax iibsamaya يعني سيدا معلنك كده واجي إنه وباهي هاي قفكو إنه Soomaaliga laftirkiisa waa qoon uga baahan markuu taa dareemo unba wax tayo la soo saari kara way ma heshaan salahan oo kale marka salahan oo kale aad buu qorayso ama aad kaba fikirtaba baahiyaha inta badan kugu xeeran ee haday noqoto cid ka eegta cid ka caawisa iyo waliba aad la kaashato iyada taa ma heshaa si sayid uga fikirtaa aad iyo aad horta alxamdulillah anigu waan helaa waxaan ku jiraa dhalinyaradii ugu horeeyay ka faa'iidaystay tababarada ilaa imikana waan la tashadaa markasta oo buug soo saarayo macallimiinteedu way joogaan iyaga ayaa iga caawiya iyaga ay toosiya iyagaana inta badan iga caawiya intiina dhegaystayaal dhawaan nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waanu toddobaadkan kaga hadlaynaa kobaca qoraalka iyo weliba ahmiyadda tayeyntiisa way aad baad mahadsantahay cabdallaan u dhiibi doona cabdalla adiga see kugu muuqataa hanaanka nimka tayada laga hadlay horta markaan eego bilowgii sidii uu ku bilowday book fair ujeeddada laga lahaabaaba ahaydba in dadku ay wax qoraan laakiin waxaa la soo mariyey heer ah horta wax akhriya markaad wax akhridiin dhiirigelinta la siinay ahayd akhriska oo gobollada oo dhan waxaa laga furay aqallo wax lagu akhristo dhallinyarada yaa la abaabulay gobollada dalka oo dhan baa laga sameeyey buugaag baa loo qaybiyey sababta waxay ahayd ninka maanta wax akhriya akhriskiisu bato ayaa berri wax tayo leh qori kara deedna tii waxay dhashay in haddana sheeko iyo shaahid lagu tartansiiyo dhallinyarada si maaragtay loo eego bal qoraalkooga halka uu gaadhsiisan yahay iyo alifaadooda tiina waxay dhashay inay horumar ay samayso marka anu waxaan leeyahay tayadii markii dambe ay bilaabeen qoraalka dhallinyaradu dadkii matalan ka soo aflaxay halkan maanta markaanu eego tayadu way isbedeshay baan leeyahay wax badan oo tayo leh ayaa ku jira dadaalkuna dee wax mar keliya maahe waa wax socda sida Siciid Saalax sheegayna waa wax barashada aasaasiga la socdo qof kolku heer gaaro waxbarashada ayuu dee qoraalkana salkiisiyo fahmaa maxay ahayd waxyaabaha qaladka u keenaya amba si uu sixi lahaa iyo dhibaatadii kale iyadoo meesha iska taalo qofkii wuxuu walaayay qof kale agtiisa joogo eeg yiraahdo oo ragga waaweyn iyo dadka wax yaqaanide wayba ku yar yihiin waqtiyadan uu la kulmo mooyaan kolka dhibaatada taasina way jirtaa laakiin markaan u eego tayada sanadihii hore iyo tan maanta aad bay u fiican tahay way aad baad mahadsantahay haddaynu tusaalahaan kusii soconno qodob uu cabdallana ka dhawaajiyo ah qoraalkii marka la sameeyo dabcan iyadana waxay u baahanaysaa akhriskii in dee buugga la iibsado oo dadka akhriyaan oo keeni karaysa iyaduna hadhow tole inay sii kobciso kuwa kale wax qoraya hadhow tole garaadkooga inay kordhiso iyada taasi iyaduna ma tahay mid barbar socoto ahmiyaddeeda le in labadii la isla dhiirigeliyo su-aal aad u muhiima weeyaan sanadkan bandhiga waxaa ku jirtay kulan baa ku jiray lagaga hadlayay publishing industry in Somaliland oon ku eegaynay warbal buugas yaa ag taagan buuga qoraaga oon yaanaynu eeginay qofka soo saaraya qofka akhriyaya ugu muhiimsan oo kaba maqan inagoo kaliya maaha Afrika oo dhan culis ka haysto oo ah waxa la yiraahdo qaybinta buuga in buugu dadka gaadho oo qofkii loogu talagalay uu gaadho dabadeedna dadku gartaan inay buuga iibsadaan akhristaan oo guriga uu meel ku yeesho buugu maalintaas aynu gaadhayna xiriirkii aynu doonayna inaynu soo sameeyno marka ugu muhiimsan waxa weeyaan aanan ku faraxsanay ifafaaleedii imika in laga arko Somaliland halkan imika qofka qoraaga ee buug qoraya ugu yaraan dee shirkada baa soo baxay buugta daabacaya markii hore waxay idin Yurub lagu soo daabaco la keeno ugu yaraan shirkad cusub jirto distribution ki sameynayso offerta meel buugta lagu iibiyo waa talaabo kale oo aad muhiim ah tay nagu muhiimsan maqaniimka waxa weeyaan inay baac mushtarka laga baac mushtarin buugta aan loo fahmin sidii baac mushtarki bariiska looga baac mushtarinayay oo inay dadka wax daabacaya shirkadaha aan daabacado aanay noqonin printing oo kaliya ay noqdaan laakiin soo saarayaan macnaheedu waxa weeyaan inay yeeshaan editorial board eega buuga
saxa oo qoraaga markay muuna buug soo dirto aanay adeer saxiid u geynin ama adeer jaamac u geynin ay u geyso publisherka oo inta laga akhriyo la yidhaahdo okay buug ceebahan uu leeyahay ku noqo intan waa laga saxay la soco ama buuggani uma qalmo in la daabacay mid kale soo qoro deeq soo noqo awooddaasi markay timaado marka waxay eegayaan publisherkii cidda daabacaysay mise editorial boardka waxa la yidhaahdo dad aqoon u leh oo eega inay buuggani halku ayn ku leeyahay inta laga soo saaraya waxa weeyaan maaha ceebayn qoraaga ee waxa weeyaan toosin intaanu buuggu dadka gaadhin in loo sheego halkii wax ka qaloocayn adduunyada dhan way ka jirtaa oo waliba lacag fara badan baa lagu bixiyaayo publisherka inta lacag la siiyo iyo editorial boardka inta lacag la siiyo dadka eegaya inta badan waxa badan editorial boardka lacagta la siinayo marka waxaynu u baahannahay in imika aynu sii ballaarsano intaynu xoreynayno xuduudda aynu meelo kala gallo oo ah qaybiyeyaasha buugaagta iyo si dadkay u gaadho iyo editorial sanadkan waxaynu culays ka saarayna editorial board way aad baad mahadsan tahay munaan u dhiibi doonaa muna waad qoraysaan isla markaana buugaagta waa socdaan xagga iibkii hadduu hooseeyo amaba bulshadeena akhristaan iyada siday u saameyn karaysaa dhiirigelinta hadda aad haysaan ee aad buugaagta ku qoraysaan runtii marka loo barbar dhigo sanadihii hore dadku imika aad bay u soo fahmayaan akhriska aadna u soo badanaya akhrisku runtii marka la eego iibka bugaagta berigii hore waxaa laga yaabaa in dad badan ayna macno ugu fadhiyin ama marka la eego library-da ama bookshopska inayna dad badan ayna booqan jirin laakiin imika sidii way ka duwan tahay sanadba sanadka ka dambaysa iibku aad buu u badanaya dadka akhriskooguna kor buu u kobcaya waayahay macalin Siciid baan u dhiibi doonaa ka hor intaan gabagabada gelin xagga akhriska muhiimada intee lag bay leedahay dhiirigelin u yeelato in bugaagta ay kordhaan waxaa runaan cidina isweydiinayn qof wax akhriyey oo haddana akhriyey oo akhriya ayaa wax qora qof hal mar wax akhriyey weli ma qoro qof aan waxba akhriyininna waxba ma qorin marka waxaa sidaa ay Muna iyo Jaamac u sheegayeen waxa weeye sidii qofku wuxuu akhriyi lahaa la isugu tago weeye macnaheedu oo akhriska qofka ay u iman lahayd weligaa miyay kugu kaliftay shuruucow meelo qaarkoodoo dadkii aad ka yaabto inanayba u soo sheegin in makhaayad ay fadhiyaan oo ay shaaha iyo kafeega iyo ku cabayaan aad ku sheekaysato intaad kuraasta u kala leexiso aad qof wax qoray iyo buug u keento oo uga sheekayso ayay meelaha qaarkood nagu kaliftay in aanu dareenkaa la gaadhsiiyo oo dhulkaa qurbahoo la moodayo inay ku ilbaxeen ereyga qoran oo ay meelo badan ka arkeen ayay Soomaalidu xagga naga joogtaa oo ay ka taagan tahay marka akhriska sida qofka loo horkeeno la isugu tago ee kaa daabacaya ee kaa soo saaraya ee kaa qaybinaya ee kaa ka talinaya ee kaa naqdiyaya ama lafaguraya oo waa meel weyn oo kale oo uu qoraalkeenu leeyahay oo qofka labada qaladba waa ku jiraanoo kii is yiraahdo wax naqdi ama falanqaynta u baxaana marmar buu ku talax tagaayoo sidii haddaa aan qofku ama macquul ka ahayn ama aanu baran uu ka noqotaa kan wax loo tilmaamaana marar badan buu moodaa in la caayayo oo la dhaliilayo macnaheedu marka gacmaha badan oo toosinta markay qofka akhriska buugga u sahlaan ay horgeeyaan ayaynu weliba kuwa badan oo sii qora gaari doonaa waayo iyadoo gabagabadii ku dhownaa Cabdallaan u dhiibi doonaa Cabdalle maanu dhadhanka buugga iyo weliba macnaha buugga gudbinaya maanu ahayn mid door ka qaadanaya inuu qofkan uu noqdo qof uu kobco akhriskiisa amaba dhinaca akhrisku kordho oo dabcan haddii tusaale ahaan oo kale uu aan buugga nuxurkiisa iyo waxa ku qoran aanu macno badan lahayn maana ahayn mid saameyn ku yeelanaysa horta waxa weyn qofka kolku wax akhriska hadduu jecel yahay wax walba ma akhriye waxyaaba uu jecel yahay u badan yihiin dadku nin walba wax uu jecel yahay akhriyaa mid taariikhda jecel baa jira mid bahalahan novelka la yidhaha sheekooyinka jecel baa jira mid maaragtay suugaanta jecel baa jira marka waxaaba horta inagu yaraaba cabdixakiimow akhriski yaaba mushkiladdu waa akhriskii way ka taagan tahay xitaa Hargeysa International Book Fair markii la bilaabay markaad eegto iyo wixii ka horeeyay bilowgiisa iyo markii ka horeysa malaha buug la akhriyo si jaan hadeerto lagu sheegay meel wax lagu akhriyo cid wax akhrida way yareed jaraydka dalka ka soo baxay dadku intay eegaan ay iska dhigaan maalinta maahe akhrisku wali anu waxaan qabaa inuu inagu liito waxaad ka garanaysaa akhriska inuu inagu liito buugta dadku uma horaan lacagta uma iibsadaan maalinta fahmaan oo akhrisku yani ay fahmaan lacagta jaadka la siisanayo
buug baa la siisan buuggaa markuu siistuu akhristana dee meel ku tuuri maaye inta uu qaatuu meel dhigan maktabad buu yeelan hadhowna nin wax qora ayuu noqon yacni dadka wax qora waxaa lagu gartaa calaamadahooga ah waanigii sheegay akhriska maktabad imse buug baad haysataa baa lagu odhanayaa imse buug baad akhriday maktabadaada aaway waa in gurigaaga laga helo buug fara badan ood akhriday markaasuu dee qofkuna qoraalkii yani wax qori karaa laakiin akhrisku weli cabdixakiimow aad buu noogu liitaa halkaa weyan halka inooga baahan inaan xoogga saaro waayo gabagabadii baynu joognaa haddaan adigaba kaa bilaabo soo jeedin maxaad soo jeedin lahayd si loo sii wado ahmiyaddan qoraalka iyo weliba akhriska eraya laba inoogu soo koobina waxaan odhan lahaa horta meel fiican baynu maraynaaye dadka af soomaaliga dadka soomaalidu meeshay joogaanba afkooda horta kow waa in loo soo jeesto laba in akhriska la badiyo saddex dadka wax haysta maanta shirkado ma haysano wax daabacsaa uu sheegay jaamac oo maaragtay lacag gelinaya laakiin dadka waxaan odhan lahaa baacimjar kale dadka ilaahay wax siiyey inay u soo jeestaan ay fahmaan in maxay qoraalku muhiima ay lacag gashaan ay dadka caawiyaan waayo siciid maxaad soo jeedinayda waa soo jeedintayda koowaad waa tanaan adduunka la wareego tabliiqeeda haddaanu ummaddu dhadhamin afkooda halkudhegaa waxaanu nidhaahnaa u hiili afkaaga hooyo saad ugu hiilinaysaana waa waxa kanaynu hadal hayno hadda qofba meesha kaga aadan haddii in la wada leeyahay iyo inuu muhiimad leeyahay oo aynu ogaano inaanu qofku dharka uu sito inaanu soomaali ku ahayn siduu u shanlaysto ama u feedho iyo waxa uu qaato na inaanu soomaali ku ahayn waxa uu hadduu canjeero cuno ama bariiska moos ku cuno inaanu soomaali ku ahayn qofku soomaali wuxuu ku yahay afka kan uu ku hadlayo iyo awaalaha dhaqanka hareeriha afka ereyna gooni ma taagna erey weliba dhaqan buu leeyahay oo ku meeraysan waxaa dhadhaminteeda marka in loo wada heeliyo warbaahinta iyo qoraal baahinta iyo kan afka ku baahiya oo la dareemo waxa aynu leenahay hantida ugu weyn inuu yahay oo laysugu tago oo kobcintiisa waa kaa aad baad mahadsan tahay doctor jaamac muuse jaamac in dhallaanka lagu bilaabo oo aynu usoo jeesano in carruurta wax loo qoro way nagu yartahay waxa carruurta loo qoraa iyo in wasaaradda waxbarashadu ay ku daraan qoraal curinta iyo qoraalka barashadiisa qoraalku waa cilmi la bartee iskuullada aad baad mahadsan tahay mune axmed cumar kolley waa intaa ay sheegeen waxaan ku dari lahaa un inay dowladda xil iska saarto oo qoraalka iyo akhriska iyo afka soomaaliga ay xil iska saarto oo lagu soo bilaabo yacni dugsiga hoose iyo ciyaalka lagu soo bilaabo inay bartaan iyo inay dadka laftirkooga xil iska saaraan afkooga oo ay jeclaadaan kadib iyaga laftirkooga ayaa qiimeynaya afka xataa bugaagtan markaynu ka hadlaynay tayadooda dadka laftirkooga ayaa qiimeyn kara markii dadku aqoon u leeyihiin afka soomaaliga guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka oo idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana barnaamijkaygala qaybgelaya doctor jaamac muuse jaamac oo agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ahna asaasaha bandhiga bugaagta cabdalle xaaji cismaan oo ah qoraa islamarkaana ah dhaqan ururiye macalin siciid saalax axmed oo ku xil dheer afka soomaaliga iyo mune axmed cumar oo ah qoraa dhallinyaro ah islamarkaana qortay bugaag kala duwan taniintiinu barnaamijkan oo kalea toddobaadka soo socda isugu imi doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo